بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kusoo dhawaada arday casharada imtixaanaha maadada xisaabta buugga form 4ka waxaan marayna waxaan kusoo jirnaa half angle waxaan gali doonaa example kan example 1.20 aan galaynaa okay given waxa lagu siiyay cos s inay la mid tahay 2 over 3 angle kan s ana wuxuu ku xadidan yahay macnaha quadrantiga ama intervalka uu ku jira oo 3 by over 2 iyo waxa u dhaxeeya 2 by u dhaxeeya okay marka waxa lagu find soo hel sin s over 2 iyo cos s over 2 ama half angle ka cos iyo tan iyaduna half angle soo hel saddexaas lagu diray marka solution waa solution garaynayna okay marka hore waxaan ka bilaabaynaa waxaan soo helaynaa cos ama sin soo helo isku mid ah okay waxaan ka bilaabaynaa sin s over 2 maxay la mid yahay jirtay qaacidada isticmaal half angle-ka plus or minus ee isticmaalaysa okay square root inta waxay 1 minus cos maadaama hadda angle-kan s loo qaato s aan iska isticmaalna cos s over 2 ayuu ahaa okay saas waa jir qaacidadiisu wuxuu ku bedelanayna okay waxa intaan ku bedelan markii hore angle-ku haduu s ah intaan u dhaxay haduu angle-ki half noqday half angle marka raadiyo intervalkan uu kala barma marka intervalkaaga wuxuu isku bedelaa meeshan hadaa laba u qaybid inta waxay noqonaysaa 3 by over 4 iyo waxay isku bedelayaan s taad waxay u dhaxaydaa s tuna laba ay kala barmay half ay noqonayaan kan wuxuu noqonaa 2 da baxay wuxuu noqonaa by ayuu noqonaa marka waa u jeedaa wuxuu u dhaxayaa by iyo wuxuu u dhaxayaa 3 by over wuxuu u dhaxayaa over 4 macnaha quadrantiga labaad ayuu kusoo dhamaanaya quadrantiga labaad markii joogo sin waa iska balance marka balance-keeda ayaad ku isticmaalaysaa meeshan okay minus waa iska reebaysaa marka meeshan waa iska baabi'i kartaa minuska waa iska dhaafee balance qaacidada balance ku isticmaal marka meeshan okay inta markii ku maray marka waa inuu ku bedelataa equal waxay la siiyay mid dhahay meeshan 1 minus cos s meeqa haysta waxa haysta 3 over 2 inta waxa dhahay marka 3 over 2 ayaa dhahayda oo loo sii qaybiyo 2 okay meeshaas kadib maxaa dhacay equal okay maxay la siiyay mid inta okay meesha dahabay 3 1 ku dhufo halka sii jar marka waxay noqonaysaa meeshan kana dii hal u dhufto 3 2 hadii laga sii jar waxay noqonaysaa 1 over 3 ay ku noqonaysaa oo loo qaybiyo 2 kadib inta ku sii dhufato waxay ku noqonaysaa 1 over 6 ay ku noqonaysaa ilaa 2 kore ku dhacay marka waxay ku noqonaysaa 1 over 6 1 ku ka baxaa marka daawan ka saarto waxa ku soo baxaa 1 over radical 6 ayaa ku soo baxay meesha marka ay ku soo bixi doona okay waxa la sii dhigi karaa tan marka hadaa rabto rationalize ku samee oo waxa baa radical cosea baabi hadaa rabto meesha ay u tagi kartaa inta hadaa radical 6 ku dhufato waxay ku noqonaysaa radical 6 inta hadaa radical 6 ku dhufatana waxay ku noqonaysaa 6 marka kan iyo kan waa isku mid labada ansar labada jawaab waa isku mid okay marka halkaas waxa ku soo saaratay sin-ta ay halka ku soo saaratay waxa kugu xigtaa inaad gasho cos ayaan galaynaa marka sidoo kale waxaan raadinaynaa cos s over 2 ayadana waxay la mid tahay plus or minus square root 1 plus ayadu waa plus cos s over 2 marka quadrantiga labaad maadaama ay tahay s over 2 ay tahay ama half angle-kan uu yahay waxaan isticmaali doonaa minus ayaan isticmaali doonaa cos waa minus markii joogo quadrantiga labaad markii joogo cos waa minus marka waxa tiraa meeshan cos s over 2 waxay la mid tahay minus square root hay inta ku bedela marka 1 plus waxay ku noqonaysaa cos s meeqay la mid ahayd cos s bedel waa 2 over 3 inta waxay ku noqonaysaa 2 over 3 over 2 ay ku noqonaysaa marka cos s over 2 waxay la simin noqonaysaa kan ku dhufa kan ku dar kan hada kan ku 3 labaad ku darto waxay ku noqonaysaa 5 over waxay ku noqonaysaa macnaha 5 over 3 oo square root kina ku jirta minuskina waa taa oo loo qaybiyo labo kadib meesha u dambayda cos s over 2 waxay loo simin noqonaysaa 2 3 ku dhace square root 5 minus raacsi okay inta waxay noqonaysaa 6 ay ku noqonaysaa hadaa meel walba ku dhufato marka okay marka labadoodu way ku wada jiraan radicalka iskala labadoodu way ku wada jiraan okay marka waxa sameey kartaa waa kala sii kartaa marka maadaama ay tahay hadda uu ka dhaxeeyo radicalkan waa kala sii kartaa waxa dhigi kartaa marka radical 5 oo loo qaybiyo radical 6 ay dhigi kartaa marka oo minus wata meel kasta waxa ku dhufataa marka radical 6 ku dhufo rationalize ku samee okay hadda radical 6 kor ku dhufato waxay noqonaysaa radical 30 ay ku noqonaysaa okay hoosna waa ka baxay marka radical 6 ku dhufato waxa ku soo haray 6 bisa ku soo haray meeshan okay intaasna ayaduna waa answerkii kaas waxa ku dhiman marka tan soo saartay ayaa ku dhiman okay marka sin s over 2 iyo cos s over 2 waa soo saarnay labadaas waxa noo dhiman marka tan s over 2 meeqay la mid noqonay iyaduna tan s over 2 iyaduna waxay la mid waxaan dhigi karnaa qaacidada waxaan iska isticmaalaynaa ratio oo macnaha tan marka tangent markaas wuxuu la mid yahay sin oo loo qaybiyo cos okay ayagoo wada half angle marka laba intaas la mid noqonaa mid walba wixii noo soo baxay waa naqaan ku bedelaynaa marka aan ku bedelano okay sin s over 2 waxa noo soo baxday marka waxa noo soo baxday iyada waxa noo soo baxday radical 6 over 6 ayaa noo soo baxday kan kalena waxa noo soo baxay radical 30
over 6 ayaa noo soo baxda macnaha costina noo soo baxay 6 oo isla baxeen meeshan. Okay, maxaa ku haraa meeshan marka waxaa ku haraa radical 6 over oo minus wataya over radical 30 ayaa ku soo baxay. Okay, marka rationality ku samee baabi marka inta waxaa ku dhufataa radical 30 ku dhufo, intan waxaa ku dhufataa radical 30 ku dhufo. Okay, labada isku dhufato waxay ku noqonaysaa 180. Okay, intaan usii gudbeen intaan kusii qorayna. Okay, radical 6 lagu dhuftay radical 30 waxaa ku soo baxay radical 180 ayaa ku soo baxay oo loo qaybiyay noqonaysa kana dad ku dhufato 230 isku dhufo waxay ku noqonaysaa 900 ay noqonaysaa 930 ay uga baxdo marka inta waxay ku noqonaysaa 30 daan iska soo gaabiyo. Okay, 180 marka waxaa loo kala qaadi karaa 180 iyadana waa la kala qaadi karaa. waxaa loo kala qaadi karaa 36 lagu dhuftay 36 lagu dhufto 5 ayaa loo kala qaadi karaa. Okay, 36 hadii 5 lagu dhufto meeqay keenay 36 lagu dhufto 5 waa 33 waa 5 ku dar 5 waa 28 soo maaha. Okay, 36 lagu dhufto 5 aan kala qaadina marka minus waxay noqonaysaa radical 36 lagu dhuftay 5 oo loo qaybiyay 30 ay noqonaysaa. labadan marka 36 way ka baxdaa waxay uga baxday marka 6 ay uga baxay waxa ku haraa meeshii 5 ayaa ku haraa intana waxa u qaybsan 30 meel kasta isku fuuday inta 6 u qaybi intana 6 u qaybi minus radical 5 over ayaa ku soo baxay 30 dad u qaybiday 6 ay noqonayaan marka. Okay, marka intaasna waxa ku eg tangent ayaa ku eg marka oo half angle. Okay, example kaas example kan kale aan gudbino example 1.21 ayaan gudbayna. Waxa lagu simplify each expression waxaad simplify ku sameeyaa fududayda expressionadan soo socda fududay. dabcan dad fiirdo labada expression half angle ayaa ku soo dhacay maxaa yeelay half angle qaacidadan ay jirtay sidoo kale qaacidadan way jirto half angle way jirto tan dad u fiirsato waa tangent ayaa la jiray tan dad u fiirsana cos ayaa la jiray. cos maxaa ku aqoonsan inay inta balance inta dimensions laga dhigana sin ayaa la jirtay. Okay, meeshan maxaa dhahay marka okay waxay la mid tahay solution aan dhahno. Okay, midkood noo soo qaad midkood maxaa waaye waxaan haysanaa plus or minus square root of 1 plus cos 2 alif x over 2 intaan waxay la mid yahay jirto cos half angle la mid yahay jirto maahno cos half angle la mid yahay jirto waxay la mid noqonaysaa marka cos 2 alif x oo loo qaybiyo 2 ay la mid noqonaysaa macnaha kana markasta laba u qaybsanad maahno kana u qaybina laba oo half angle maadaama uu yahay. Okay, inta waxa la sii mid noqonay marka cos inta isku qayb waa 6x cos 6x ayaa ka soo baxay marka saas u fududay expression kaas waa eeda b dan aan ku daro b ayaan ku daray b maxaan haystaa waxaan haystaa 1 minus cos 5 alpha oo loo qaybiyay sin 5 alpha. Okay, inta marka waxay la mid noqonay tan iska leedahay qaacidada waxay la mid noqonay marka tan 5 alpha over 2 ay la mid noqonaysaa. Okay, marka 5 iyo 2 dabcan ma sii fududeysmayaan expression ma sii fududeysman karaan. Okay, labadooda laba number waxay kala yihiin oo prime number isaga ma fududeysmayaan marka inteeda ay deynaysaa. Okay, intaas iyada simplification intaas ma dhaafayo. Okay, example kan intaas ayuu ku egyahay. example kan kale aan gudubnay example 1.22 ayaan fiirinaynaa marka example ka 22 ee buuggan form4ka wuxuu leeyahay verify xaqiiji waxaan soo socday inay identity marka waxa xaqiijinaya identity-gan ayaad xaqiijinaysaa inay isku mid yihiin left side iyo right side marka. Okay, markasta daa'iman marka aad rabto inaad xallido macnaha identity aad rabto inaad buufto waxa sameynay dhinaca complicated ka la qaataa marka dhinaca furfurmi karo oo macnaha weyn aad qaadanay marka dhinacaan ayaan qaadanaynaa kan ayaan gaaraynaa marka. Okay, aan soconnay meesha waxaan sameynaynaa marka horaan ka bilaaba marka sameynay kan horta waxaad isticmaashaa qaacidadii xasuuso binomial square isticmaal qaacidadan waa taqaanaa a square plus 2ab plus b square qaacidadan isticmaal sidoo kale waa sin x oo of 2 ama sin half angle iyo cos half angle waa a b kugu taagay marka sidoo kale fududeed tan hadaa fududeed maxaa dhaca marka waxay ku noqonaysaa sin square x of 2 labadooda isku dhufay laba ku dhufo waxay ku noqonaysaa plus 2 sin x of 2 oo ku dhacsan cos x of 2 maxaa u dambeeyay b square maana cos tan b kugu taagay waxaa dhahay marka plus cos square x of 2. Okay, inta markay ku maraydo marka soo fiir wax yar meeshan si fiican iska fiiri maadaama tan iyo tan labada square tan isoo xiji waxaa tiraahdaa sin square x of 2 sin square x of 2 plus oo lagu daro cos soo qaado cos x of 2 plus waxa ku sii dartaa 2 sin x of 2 oo lagu dhuftay cos x of 2 inta marka ku maraydo marka waxa hore soo barato taqaanay sin square iyo cos square dil isku dara wanay sameeyaan Soomaan wanay sameeyaan iska fiiri. Okay, marka intaas oo dhan waxay u dhigantaa 1 ay u dhigantaa marka 1 plus soo qaado haddaad xasuusato double angle 2 sin x cos x waxay la mid sin 2x la mid iska ila qaacidada waxa xasuusataa qaacidada xasuusta kartaa laga rabaa qaacidadan hadda xasuusato ahayd macnaha sin 2x waxay la mid ahayd
2 sin x cos x ay la mid marka intaan aad haysataa hadda intaan hada x tan kaliya laba u qaybsanta waa isku meeshii angle ku xor u noqon karaa marka sin 2x ay la mid tahay intaan marka waxay la mid noqonaysaa sin 2x laakiin sin 2x la mid noqotay angle-ka waa x over 2 marka inta waxay ku noqonaysaa sin 2 oo sin 2 x over 2 ay ku noqon angle-ka waa x over 2 iska ilaali angle-ka inta wuxuu intan ku noqonaa 2 iyo 2 waa iskan salaan meesha waxa ka soo haray marka 1 plus sin x ay ka soo harto waana wixii aan rabnay inaan gaarno oo kan ah marka intaas ayay saamalkaas intaas ayuu ku ogyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.